iyaga waxaanu ka doonaynaa warbixin hadday iyagu qaladka leeyihiin waa inay sheegaan sababta ay sidaa u yidhaahdeen annagu xashiish la xaadho ma doonanay dadka ka qaalisan xashiishka yar ee meelaha laga gurgurayo ummadan dhan ee bakhtiyasa ee ku hoos nool ee waxoodii ay baabiyeen waa inay warbixinteeda keenaan golaha deegaanka iyo maaga kuwa ummadan ay eryanayaan waxay u eryanayaan u fadhiisin waayeen suuqoodii waayo suuqa la doonaya in la baabiyo cid gaar ah la siiyo waa sida warka nagu soo gaadhay marka waxaan leenahay cadeeya oo sheega oo hantidii suuqa la idinku soo dhiibana cadeeya miyaa la iibsaday waxaanu doonaynaa saaka baafin suuqii waaheen wixii ku dhacay danyarta baabiyey wixii gubay suuqa anigu waxaan doonayaa ciddii ku shaqada lahayd ama maayirka ha ahaado ama golihiisa ha ahaato amba cid kale oo ku haysata isaga ha ahaato waxaan doonayaa in ummadii la qanciyo in gubashadiina loo cadeeyo waxa imika dadkii way ilaabeen imika dadkii dhulkii meelahaas lagu tuurtuura waxa anigu aan aaminsanahay anigu shakhsiyan in la iibiyeyba meesha gebigeedaba suuqii gebigiisaba in la iibiyey lama taaban lama sheego waa la dumiyey waa la isku fadhiisiyey dadkii lahaana waa la ilowsinaya waxa la doonaya dadka inta la qanciyo in dabeetana cid gaar ah waa la iibiyaaba nala leeyahay haddii laba iibiyeyba daawadayaal waxaa hadda barbarkayga fadhiya oo magaalada Hargeysa ku kulanay boqor Raabi oo kamid ah salaadiinta dhaqanka ee ugu waaweyn Somaliland ugu horeen boqor ku soo dhaw telefishinka Horyaal bal waxaad ka warantaa xaaladda guud ee dalka waxa weeyaan ninna loo sheegi maayo waxaan ka hadlayaa saaka xaalad ka taagan wadanka oo aad moodo in la ilaabay suuqii waaheen ee danyartu lahayd dadkiina cidla lagu erariyanayaa dhulkii dhammaa ee dhisnaa ee sariibadii dhaxalkii awiyaashan ahaa ee ummaddu lahayd ee suuqii waaheen ma dad gaaraa la siiyey ma cid gaaraa loo daayey miyaa la iibsaday lacagtii la soo ururiyey meeday waxaanu doonaynaa oo aanu baafinanaa maanta dhaqaalihii loo soo ururiyey suuqii waaheen 200 guri ee gubtay ee private-ka ahaa baa laynoo sheegayaa oo la leeyahay lacag baa la siiyey kana la siiyey suuqii danyarta ee waaheen ee gubtay ee lacagta lagu bixiyey ee ummaddu lacagta ku bixisayna wax soo qaadaya iyo wax sheegaya midna lama hayo waa la damiyey miyaa la iibsaday waxaanu doonaynaa saaka baafin suuqii waaheen wixii ku dhacay danyarta baabiyey wixii gubay suuqa waxa weeyaan waa arrin aan u baahannahay in laga shaafiyo dadka iyo dadka wax fahamsan number 1 waxaanu doonaynaa wixii gubay ciddii ku shaqo lahayd inay caddayso marka labaad waxaanu doonaynaa suuqa waxa loo baabiyey ilaa wuu dhisnaa suuqu oo sabad buu ahaa oo sariibad dhan oo isku xidhan bay ahayd waa la dumiyey dhulkaa la dhigay dadkii danyarta ahaa ee lahaana waa ta halkan kolba meel la eriyanayo sababta loo dumiyey ee loo aamusay ee lacagtiisii loo sheegi waayey aad iyo aad baan u baahannahay inaanu warbixinteeda helno dadkii hantida ku lahaa ee meesha dhaxalka ahaa ee dhaxalkii awogood haysana waxaan leeyahay hal la siiyo dhulkoodii haddaan loo dhisahayn iyagaa dhisan doona hal la siiyaan leeyahay saas baan u arkaa way boqor waad maxsan tahay waxaan ognahay in suuqa waaheen iyo guud ahaan caasimadda Hargeysaba arinteeda uu gacanta ku hayo maayirka caasimadda Hargeysa si gaar ah lacagihii la soo ururiyay arrimahaas waxa maamulay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Xamooge iyo golihiisa deegaanka miyaanad iyaga aanad ahayn inaad si toos ah ula hadasho oo tiraado halkee ayuu marayaa suuqii waaheen anigu waxaan doonayaa ciddii ku shaqada lahayd ama maayirka ha ahaado ama golihiisa ha ahaato amba cid kale oo ku haysata isaga ha ahaato waxaan doonayaa in ummadii la qanciyo yaa qancinaya laakiin miyaan ahayn inuu maayirku qanciyo waxa weeyaan cidda mas'uulka uga ahayd ee loo xil saaray ileen maayirkaynu u dooranay magaalada golada deegaan baynu u dooranay golihii baynu ka doonaynaa
cidda haysata iyo cidda ay ka socon waayeen iyo waxa loogu talagalay suuqa inay ummadda u caddeeyaan si publica iyagaynu ka doonaynaa golaha deegaanka iyo cid kasta oo ku dul maamulasay waxa naloo sheegay in lagu dul maamulaye iyaga iyo kuwii ku dul maamulayayba yaa ku dul maamulaya hadda halka bulshada cadis waxa naloo sheegay in lagu dul maamulayo oo kooxahan meesha haysta ay ku dul maamulayaan waxaan ogsoonnahay in suuqa markuu gubtay waaheen uu tuhun badani dhinacyo badan uu ka yimi oo ilaa hadda aanay cadeen sababta rasmiga uu gubtay suuqii waaheen bal maxaad ku macnayn kartaa gubashadaasi imika laga joogo sanadkii dheeraadka waa tan doonaya in loo caddeeyo ummadda in gubashadiina loo caddeeyo waxa imika dadkii way ilaabeen imika dadkii dhulkii meelahaasaa lagu tuurtuura waxa anigu aan aaminsanahay anigu shakhsiyan in la iibiyeyba meesha gebigeedaba suuqii gebigiisaba in la iibiyey baan aaminsanahay haddaan la iibinna waxaan leeyahay ha loo caddeeyo dadka yaa iibiyey markaa waxa iibiyey kudladda meesha haysataa oo sida naloo sheegaya imika warkuu igu soo gaadhayo baanankii waddanku lahaa dhaxalkii awiyaasheen ilaa ingiriis ay xaraashiyaan imaka waxaan uga digayaa nin kasta oo baac mushtariya oo isku daya inuu ka iibsado dhulka ummaddu leedahay inuu ka iibsado inuu xoolihiisa ku ciyaaray baan u sheegayaa miyaanay dhaliisha markaa miyaanay maayirka iyo golaha deegaanka ee dadka uga mas-uulka dhulka miyaanay dhaliishaygu yeelanayn haddii dhulkii la iibiyo cid kasta oo ay khusayso baan leeyahay waxna golaha deegaankaale oo waanagan ka rabna imika inay warbixinteeda keenaan waxna waxaa leh kuwa uga sarreeya iyaga dee meesha haysata kudladda ayaa leh kudladda meesha haysata marka waxaan doonayaa nimanka baac mushtariga horta kuwa baac mushtariga horta waxaan leeyahay haddii maalkaa iibsata waanu ognahay guryaha iibsateen hore dhammaantood way noo diiwaan gashay guryihii dawladdu haddii baanankaa laakiin ay isku dayaan inay iibsadaan iska ogow nin walowba xataa hantidii horeed iibsatay ayaanu kuugu iman doonaa midda kale koox gaari ma iibsan karta dee hantida ummadda koox gaaraa iibsatay imaka hantidii ummadda ma garanaysaa dooni mayno koox gaara inay iibsato dhaxal deegaankaa leh waa in deegaanka loo qaybiyo bersanta loogu qaybiyo haddii xataa la iibsanayo deegaan walba waa in loo qaybiyaa hantida maguurtada ahee laga iibiyey cid gaara ayaa maamulanaysa cid gaara ayaa iibsata bidhin lama sameeyo wax warbixinoo laga bixiyaa ma jirto taasi waataanu doonayna in la caddeeyo waxaan se ka digaya oo aan ka digayo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba nimanka baaci mushtariga isku sheegaya hadday iibsadaan hantidaa baanankaas la sheegayo iyo inta yaree hadhay imaka ee ku taalla downtownka sida khayriyada sida baananka lama kirayn karo lamana iibin karo cid gaar oo wax gaara ku samayn kartaana ma jirto ninka isku daya ee iibsada ha ogaado in ay ummaddu arkaso indhahooda ku arkaso oo laga soo celin doono hantidii horey qaateen sida sariibadii Oktoobar oo kale ee dadka lagaga bedeshay gawaadhidii lagu leynayay iyaga dhaxalka loo siiyay iyaga ee bannaan imaka dadka la yiraahdo waa in loo baneeyo albaabadoodii loo furay imaka sariibada Oktoobar waa in la sameeyaa guriga ku xiga imaka station place waa maxkamadii hore ee qaadigu fadhiisan jiray iyo halkii taarka dhammaantood dhulka waa in loo soo celiyaa dadkii lahaa boqor waxaan ogsoonahay hadda in dhismihii suuqa waaheen uu socdo oo ilaa hadda imka dhismihii uu socdo arrintaas miyaanad ka warqabin in dhismihii socdo niman barayfada guryahoodii weeyaan xaq bay u lahayn marka horeba lacagna way haystaan iyagaana dhisanaya maxaa khuseeya waxa lagu saasinaya dhulkana loo doonaya in lagu saasiyo oo lagu qariyo guryaha barayfadka dad baa marka horeba in laga xanibo qalad bay ahayd oo sanad laga haysto laakiin saasin bay ahayd iyo ku talagal loogu talagalay in ummadda waxooda lagu maydhaamo marka maxaa dhiman hadiiba dhismihii suuqu socdo dhulka aad leedahay waa la iibinayaa iyo dan yarba laga kiciyo waa dhulkee weeyaan waa sariibadii waaheen weeye sariibadii waaheen lama taaban lama sheego waa la dumiyey waa la isku fadhiisiyey dadkii lahaana waa la ilowsinaya waxa la doonaya dadka inta la qanciyo in dabeetana cid gaara waaba la iibiyaaba nala leeyahay haddii laba iibiyeyba sariibadii boos wal oo 2 mitiraba qof baa ilaashanayo oo ka jid deganaa
marka waxaanu doonaynaa dadka in loo cadeeyo dadkiina waxaanu leenahay waar hantidiinii waxa la doonayaa in loo tashado warkeeda keena way maayirka caasimadda Hargeysa ayaa arintan xoogeeda gacanta ku haya oo bulshaduna ay eegaysaa lacagihii la soo ururiyay waqtigii gubashada suuqa waaheen waxa lagu hagaajiyay maayirka caasimadda Hargeysa iyo golihiisa deegaanka bal iyaga maxaad fariin u diraysaa maayirka wataan ku sheegay golaha deegaanku waa kaynu u dooranay deegaanka inay hagaajiyaan iyaga waxaanu ka doonaynaa warbixin hadday iyagu qaladka leeyihiin waa inay sheegaan sababta ay sidaa u yidhaahdeen annagu xashiish la xaadho ma doonanay dadka ka qaalisan xashiishka yar ee meelaha laga gurgurayo ummadan dhan ee bakhtiyasa ee ku hoos nool ee waxoodii ay baabiyeen waa inay warbixinteeda keenaan golaha deegaanka iyo maayirka kuwa iyagaanu ka rabnaa caddayntii haddii markay caddaynta noo sheegaan baa hadalka kala furan yihiin ma garanaysaa marka iyagaanu ka rabnaa caddaynta inay golaha deegaanku inoo caddeeyaan hantidan waxa xanibay hantidii loogu bixiyey ee ummadda loogu talagal halkii la geeyey ummadan ay eryanayaan waxay u eryanayaan u fadhiisin waayeen suuqoodii waayo suuqa la doonaya in la baabiyo cid gaar ah la siiyo waa sida warka nagu soo gaadhay marka waxaan leenahay caddeeya oo sheega oo hantidii suuqa la idinku soo dhiibana caddeeya dadkiina meeshoodii u baneeya haddaydaan u dhisahayn dadka waxoodii u baneeya wuxuu ahaa boqor Raabi oo kamid ah salaadiinta dhaqanka ee ugu waaweyn Soomaaliland oo igu warramay magaalada Hargeysa Liibaan Cismaan Cali Horyal TV Hargeysa